sidee ku soo jiidan kartaa qalbigaa sii jeeda. Ugu horeyn, ha noqon qof ku degdega u bandhigidda ama u gudbinta qofka aad jeceshahay fariintaada. dabeecad, Waa inaad tahay qof furfuran oo dabeecad wanaagsan leh. xishood, Mar walbo waxaa lama huraan ah inaad ahaato qof xishood badan. qurux, Waa inaad tahay qof qurux badan, soo jiidashana leh. Quruxdana ma aha midda wejiga keliya waa quruxda qarsan ee dabiiciga iyo habdhaqanka wanaagsan. xog ogaansho, balwad, Haddii aad tahay gabadh ama wiil, ku dadaal sidii aad u ogaan lahayd qofka aad jeceshahay, waxyaabaha uu xiiseeyo ama balwaddiisu tahay, adigoo aan weydiin qofka aad jeceshahay, balse raadi waddo kale oo aad ku ogaan karto, sida adigoo ka waraysanaya saaxiibkii ama saaxiibaddeed, adigoo aan lagaa dareemin ujeedkaadu waxa uu yahay. sheeko, Mar walba uga sheekay qofka aad jeceshahay waxyaabaha uu xiiseeyo, uuna ka helo ama ay ka hesho inay dhagaheedu ama dhagihiisu ku soo dhacaan. xiriiriin, Qofka aad jeceshahay haddii uu yahay qof kaa fog oo aad laba waddan ku kala nooshihiin, ku dadaal. Sidii aad u xiriirin lahayd mar walba, adigoo taleefan kula hadlaya ama waraaqo lagu qoray erayo qalbiga u roon, uguna diraya aaladda casriga ah ee internetka. Haddiise aad hal waddan wada joogtaan ama aad meel ka wada shaqaysaan, waa inaad mar walba ku soo dhowaysaa weji furan oo ay farxadi ka muuqato. ka warqabid, Qofka aad gaclootay haddii uu kaa fog yahay ama meel wada joogtaan, noqo qof ka warqaba oo la qaybsada farxad iyo murug wixii soo wajaha.